wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland ayaa lacag kala wareegtay xubno qurba jooga si loogu dayactiro dhismaha wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer oo dhismaheedu wali socdo. Maareeye ku-xigeenka wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland Mustafa Qalab oo la wareegay lacagtaasi ayaa ka mahad celiyay lacagtan ay soo gaarsiiyeen xubnahani qurba joogta, waxaanu ku dheeraaday warbixin koobanna ka sii bixiyay halka uu waqti xaadirkan marayo dhismaha wadada isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer. waxaan kale oo mahadnaqayaa hablaha qurba jooga ee lacagta nagu wareejiyay ay ugu horeyso waxa weeyaan Hinda Maxamed Biixi, Sahara Axmed, Yaasmiin, Sabaad, hablaha qaaliga ah ee Ingiriiska lacagta ka soo ururiyana ilaahay waxaanu baryanaa ilaahay inuu khayr siiyo ilaaminayna intii aanu joognay dawladda Muuse wasiirka jidadka iyo gaadiidka Mustar Cabdillaahi iyo maareeyaha hay'adda wadooyinku waxay qabteen wax aad u fara badan. waxaa ka mid ah buundada isku xidha waxa weeyaan tukaraq ciidanka qaranka, waxaa ka mid ah waxa weeyaan jidka isku xidha Berberiya Hargeysa ilaa iyo Macaaneeyo aanu sameynay, waxaa ka mid ah waxa weeyaan wadada kontaroolka Hargeysa ilaa Gabiilay oo la sameeyay, waxaa ka mid ah gurmadkii aanu u gurmanay waxa weeyaan dadkii duufaanadu ay heleen, waxaa ugu dambeeyay biriishka jaamacadda Camuud imka loo sameynayo, waxa taasiiba dheer wadadii Ceergaabo oo iyadana si dardar oo aad u culus loo sameeyay. waxaanu kale oo halkan bulshada Soomaaliland maanta uga sheegaynaa inaanu soo kordhinay adeegyo cusub oo hay'adda wadooyinka aanu ku soo kordhinay oo ay ka mid tahay inaanu gaadiidkayga ku xidhayno macluumaad aanu kula soconayno gaarigaygu halku taagan yahay, shidaalka intuu cunay, taayirka galay iyo sidoo uu isticmaalayo, mas'uuliyadda qofka gaadiidka noo wada, waxa loo yaqaanaa GPS baa loo yaqaanaa Soomaalidu taqaanaa, dadku saas bay ka qabaan laakiin waa adeeg lagu ilaalin doono waxa weeyaan gaadiidka lagu ilaalin doono. maantaanu bilownay, maantaanu ku xidhaynaa haddii la yiraahdo Toloson baana la joogtaa iyadana waa ilaahay mahadin. waxaan kaloo iyadana halkan ka cilaaminaynaa shaqaale 180 baanu leenahay. ilaahay ha inaga ilaaliyo cudurradu waa cudurro faafaa jira, cudur la yiraahdo Jones baa jira oo adduunyada khatar ku ah oo dilaa ah. cudurkaasi waxa loo helay tallaal baa loo helay. waxaanu maanta bilownay inaanu cudurka 180 ka shaqaalaha ee habeen iyo maalinba abeesadu cunayso haddii aanay dayac u dhanin cudurka laga tallaalo maantaanu iyadana wadnaa. Sahara Axmed oo ku hadlaysay afka xubnaha qurba joogta ee soo wakiishay lacagtani ayaa ka xog warantay muhiimadda ay dalka u leedahay dhismaha wadada Ceergaabo. aad baan u qiiroodaa markaan soo xasuusto wadadaasi siday ahaan jirtay. waxaan aad iyo aad ugu ducaynayaa oo mahadnaqayaa madaxweynihii hore mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo nahasiyo wadadana waxaan ka baryayaa ilaahay inuu sidii u bilaabay ay u dhamaato oo u dhameystiranto. ilaahay kariim aad iyo aad baad wada mahadsantihiin dhammaantiin. Mustafa ku wareejinaya lacagta yar aan haynana walaa lacag aad yar tahay haddana wixii aan qabanay ma sha Allah tabarakallah. Mustafa ku wareejinaya geesta kale maareeye ku-xigeenka wakaalada horumarinta wadooyinka Soomaaliland waxa uu dayactir ka bilaabay 2 kiiloomitir oo ka tirsan wadada deegaanka Inaaf Madoobe, waxaanay bulshadu inta badan kala kulmi jirtay dhibaatooyin badan kolka ay ku safrayso wadadani, waxaana wax qabadkaasi soo dhaweeyay bulshada deegaanka Inaaf Madoobe oo ka mid ahaa maayarka degmada Qoryaale. kadib halkan aad iyo aad waxaan mar labaad uga mahad celinayaa wasiirka howlaha guud iyo wakaalada horumarinta jidadka iyo maareeyaashiisa oo halkan oo ugu horeeya mudane Mustafa markaa iyo wasiirka iyagoo maanta noo bilaabaya laamigii Inaaf Madoobe. saaka waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda howlaha guud, wasiirkeeda, maareeyaasheeda, howlwadeenkeeda dhammaan. haddii ay ribeedinkii bilaabeen waxaanu ka codsanaynaa inay si wacan ribeedinka noogu sameeyaan. wadadana wuu ku mahadsan yahay, waanaanu ku taageersanahay, gacan baanaanu ku siinay. intayada kalena howlgalkii aanu soo wadnay ee magaalada ka dhinayd waanu wadnaa, waanaanu kordhinaynaa. waxaanu se u mahadnaqaynaa dawladda iyo wixii shaqaale ah kulli dhammaantood, ilaa maayirka degmada Qoryaale, ilaa qurba joog, ilaa wax alaala wixii Soomaaliland dalka gudihiisa iyo wixii dibadda ka maqan. Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker, telefishinka caalamiga Ariel TV, magaalada Burco.